kadib warar aan la xaqiijin oo sheegay in magaalada Muqdisho ay ka bilaamatay ka ganacsiga sharci darrada ee xawayaanka diinka ayaa hadda uun loo ogaaday in horey sidaan oo kale madaarada wadamada Malaysia iyo Comor loogu qabtay kooxo maafiya oo ka ganacsanayay diin laga keenay dalka Madagascar oo isagu u noocay kan Soomaaliya naadirna ku ah dunida. wadanka Madagascar ayaa laga dabar jaray xawayaanka diinka waxayna u muuqataa hadda in loo soo dhigtay diinkii Soomaaliya. waxa kaloo jirta in wadamada Aasiya si aad looga isticmaalo hilibka diinka iyo waliba qalofta diinka oo laga saaro subag iyo waliba maraq la sheegay in lagu dabiibo cudurro fara badan. waxa kale oo shirkadaha daawo dhaqameed ka sameeyay dalka Shiinaha ay u isticmaalaan qalofta diinka sameynta daawooyin raganimada xoojiya. waxaase hubaanay in la badbaadin karin diinka Soomaaliya haddaan la herin qaab loola socon karo dhaqdhaqaaqa ajaanibta faraha badan ee dhooban Xalane iyo waliba hoteelka Chelsea. waxa kale loo baahan yahay in la faro awaamiir laamaha socdaalka Soomaaliya in si weyn loo baaro boorsooyinka iyo agabka ka dhoofaya dalka.